dad badan baa maaragtay muxuu ahaa awlaadooda waxaa laga yaaba markay reerkii isku dhaceen oo awlaaddii lagu kala tegay meesha ilmihiiba meeshan dhooban oo hooyadood ay haysato inuu duurka iska galay lacag iska sameynayo taraagi iska saaran yahay bisniise kale iska wato because naagtaas ama qoftaas ay isku xumaadeen daraaddeed inuu ilmihiina maaragtay muxuu ahaa u xumaynayo oo markaasina intaasoo reer aad arkaysid in micnaha ay isu daba socdaan child support ilaah kugu dhaarshay qofkaas yani ilmahaagii inay maxkamad lacag kaa soo qaado oo ilmahaagii lagu quudiyo ma sidaasaad micnaha maarata islaam ku tahay oo ilaahay uga baqay subxaanahu wa tacaala in ilaahay laga baqo wey ilmahakaas wuxuu ku filan oo quudu ilaahay subxaanahu wa tacala uu kaaga soo qaaday si yaanba laisla gaarin child support iyo xaggay ka dhacday iyo gar ilmaha sababkaagay ku yimaadeen adduunyada adiga ayaa ka mas-uul ah meelay maanta higsadaan ma lahan waa minors weeye waa innocent wax dembigu ay sameeyeen ma lahan marka taasina ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baq ehelkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baq cidda aad nafaqaysood quudisid ha dayacin maxaa yeeley kafaa bilmar-i ihman an yaxbisa caman yaquut oo caman yamliku quutahu kama qaala calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim nabi sal slam wuxuu yihi qofka dembi waxaa ugu filan in cidda ilaahay quudka ugu soo dhiibay cidda mas-uulka uu ka yahay uu ka xabiso waxa ilaahay ugu soo dhiibay subxaanahu wa tacaala